السلام عليكم. عليك السلام. هاي نعم من جوجتا. نعيمة. نعم من جوجتا. نعم إن أركان ما ذي. maxaa ahayd walaal wiilay saaxiibayihiin waa muddo isla xiriiri jirno isla sheekaysan jirno waqti isla qaadan jirno marka Nairobi maanta aniga Nairobi dhinac ka jooga inaan soo booqdo soo arkaan jeclaystay. okay waxaa tahay miyaa qoladii gaariga waday alaab ay soo ilowday ma awoodi mise alaab maya alaab wax isma maanani ayada inaan arkaa u maad ayada inaan arko nacimo inaan ruuxin u arkaa guriga ayaa ku soo tilmaamay guriga ayada ay tilmaantay ayada soo madegan هذا قرو ما دقنتها ها قرقان دقن قف قرق اسكلا بان واي انا اركان ربي ميو عرفتا سوغرت بل وا قرق دد با اسكلا مسؤولka ina bila amar laan saas guriga u garaacid waa khalad ma bay dad jiifa jira way ma sida adigu leedahay kala albaabkii ord baa ku soo gashay de guriga qof aan u maada degan ma bay ayda irid ana ka furay xitaa idhaado ana marka adigu arko abayaa guriga kalena soo garaaca aan bileenayba marka nimcana ma garanayo de qaabka degdeg ah hal mar sulaha la siinaa ma gurigan waxa ku keenay ma aha mar ran sheekaysan jirnay goormee waqtiga Soomaaliya jirtay la hadda sheekaysanayna markay maatigeedii waxa dhawaaba la socotay waxaas waa ogaa waa la socday aye marka ayda rabay zaida aan waxisina arkaa rabay macquul hadii taa miyuu kartaa ina arkaan rabay xisitaan حستاك انت ترى لا هو واقع على كلامك ما اسمقانا وراء شيء كسجل سيتاي يا في عنتها في عنا الحمد لله يورن سدو الحمد لله وما شاء الله ويلك اصحابنا هي وراء شيء كسجرني hore hadda u soo sheegaysan jirteen gurigii iyo telefoon baa jira dadka laga wada telefoon iskala soconaad Facebook iskala hadlayna maxaa dhimala ani adigu wada hadlaynaa haduu gacli ayaa gurmad yahay la hadalo kaas dadaalak sheekada waa sheeko la yaab sida kale yooran والله سدو marka telefoonka ay hadda isku mid ma wati wallahi sa ku maleeynaa uma tiid wallahi soo Facebook ku saaran ya dirtan waxaan kala imaanaa laba qof wallahi billaah hay marana ku imaanay ina santa hada ogaalahay hada hadda ma ka soo daayay mishalad aad midan ku imaanay yooran xaaladaha khayr wallahi waska fiican alxamdulillah waka keenay alxamdulillah wallahi Nairobi khawgeeda ku soo dhawaaw barafka adduunka daa ma sha Allah ilaa noo nimcay anaga xaq kuleel ma soo kuleel kulisha Soomaaliya laakiin wadankayga laga ma yaqaan wax la isqabanayo iyo guri qof soo galay irid loo istaagay waxaas dhan laga ma yaqaan had socoto waa sheekada maxaa banaanka ma aad shalay leeb imaatay goorma shalay hadaa imaadaan nafaaleen nolol ay u xiriirto maxaa jira qof dhalinyaro ah meesha waa ka dhacay meesha waa istaaga waxa rawa wareysana inta istaagaad badirbi guri xabsi miya meeshan maxaa ma ya xabsi ma ahan laakiin dadku markay imaadaan guriga horta cabaar joogan markay guriga dhaqankiisa ay fahmaan banaanka aadaan laakiin adiga waa waraab uga baxday ilaa banaanka marisoo tusbay kaay aniga shaqadeeda saas waa Soomaali marka joognay ma celcelin jirin hadda meel istaagi jira xabsi Nairobi waa arkay maralaada markaan ku soo aan bal suuraysanay meeshan waxbarasho ma automatic mas'uuliyad automatic ina waxbarasho soo dhameeyay ana qof waxbarasho dhimataan ku leeyahay wallahi horta waxbarashada xagga inta kala duwan tahay muuqtaa waxay kala duwan tahay mal isku mid waa aniga waxa ka soo baxay jaamacad oo waqtiga waxeeda sareeyo ma baan ina wax kale ku noqdo faham ma sha Allah wala shaamiya ولا شيء واي نكاوينتا مش كايرتا ايغوينتا واو نكاوينتا ما ولا مليا كايرتا لو مليا انا ما اساس دقوه عندي صور في فيسبوك وصارنا يخلطوا انت يدي نكاوينتا اي كايرتا لو مليا دمله هيلبكا اي قاداني حتى ما نيرو ما تدو كدنو كاغديا اسكدغ maxaa ka qabata aad halkan meeshaan wallahi meeshaan waxa kama qabtaan waa iska baaga mudayay meelayga iska soo wareega galabtiga meelaha shaah lagu cabiyo meelaha taga habeenkii gurigeyga ku soo hidaa shaqo la'aan jirto meeshaan 4.5 shaqo la isku siiya shaqo la'aanta adduunka ka jirto kool waa kaas adiga marka meeshaan ma si joogirta ma soo aan dhoof oo maadina baxo ina baxay waa wareey dimal inta joogtid waa ku soo dhaweynaa magaalka meesha rabtaa lagu geenayaa waa dalxiis meel qaar oo lagu dalxiisa jiraan oo qurxan oo meel qaar xataa Soomaali aan lahayn oo kale taa jirto meeshaan lagu oo Soomaali joogin ba jireer la ku arkaysaa bas iyo cadaan wax kale ma jiraan waa shidan tahay meeshaas ya waa shidan tahay ma arkaysaa lagu geenaa soo booqanaysaa ma sha Allah marka waa kaasa
magaalada waa kusoo dhawow. diyaar waa mahadsan tahay allah ku sharfo mar labaad adina soo dhawow barasho wanaagsan waa kasoo is aragna maanta wanaagsan oo caanaad hadda mis baranina marra is baranina macnaha waxa ka wada life to life maanta nuskaan horeyso Soomaa is aragti macnaha maanta nuskaan horeyso waa diyaar barashadana waa life dadka inay isku bartaan oo kale telefoonka qof uu gaabiyo qof uu dheereeyo qof uu muddo laakiin aragtada dhabta amaanta macnaha ay ma wala horta aan laftirkeyga ku farxsan marka magaalada iyada qof adoon kula soconin iyo waxaas isku bixin banaanka waa iska xuntahay askarteeda iska wareegayso sharci wala ma qaadan ma baasaboorka lagu soo dhuftay aniga banaanki baasaboorki xagee taariib loo siiyay maya bay taariib ma ahana waa way aqoona naga dhaxaysayna waani banaanka wax ka jiray wax magaalada ka jiray oo sheegay waxaas cid ku dirsta ma gurigan waxaad ku soo gashay si khaldan albaabkiisa ku soo gargaraacday kuna soo gashay ma garad dad ajnabi kala ah laba qof oo shariicada islaamka isu banayn ama walaal ahayn ama isqabin ama waalid isku ahayn inay kuraasta walaal macaan wiilka ana martiya say wax ka yihiin aam sadar deegaan dhamaysto kadib hada inaad kuraasta inta isku fariistay warka inta tiran leeg tad maanta ku haysin oo idin dulqaadanaya halkaas taagna waxa isla haddana dhamaysto haba laakiin waxa aan tara dhaaf ka noqday ma garad hallo albaabkan markii hore khalad ku soo gargaraxday haatana kabahaaga qaado bax ma wala horta khalad waxa la ma jiraan gabadhan xagga iga fadhisan intaan ka fadhiya laba qofood ajnabi ah kala laana oo sheeko bas naga dhaxayso wax kale laga ma dhaxayaan gabadhana marra isbaranay way imaatay way ii sheegtay inaan soo booqdo arko waa ku faraxsanahay ayadana ku faraxsantaa family lama tihid qof qaba ma tihid qof la dhashay ma tihid dadkaas inta tira leeg maxaa ku gashay faraxa iyo murugta waxa soo dhan dadka la dhashay dadka family-ga bay u taalaa mid adig ku taala ma aan eed macaan asxaab iyo waxaas ma leed miyaa ana asxaabteeda ah soo booqanay dadka muslim ma aha miyaa ma lees salaam karmiya mayo dadka dhan wax daran baad afka ka darsma badalo dhawrta soo okaabali wiilkan asxaaba mar hore ahayn wiilkan asxaaba mar hore ahayn waa isnaqeynay maanta wuu isoo salaamay magaalada martiyaan ku ahay maanta wuu isoo booqday isoo salaamay taasna wax dhiba ma keenis maxaa ku daar maxaa tiri wuu isoo booqday wiilka wuu isoo booqday waa wiil muslim anan gabar muslimada ah wax qalad ma sameeyeen halkaas soo fariistay aan halkaan fadhiyo waa wada hadlayna waa isbaranayna kadibna uu baxay goormaad baranaysaa long time wiilka isnaqaan qof hadda isbaranayna ma ahanba teeda kale marti ma lagu noqon karo miyaa qofkan waa qof martaado imaadee fiiri gabadhan aniga ayada waxba naga madhaxayaan un asxaabaan ahay inay timid in kale xaaladeeda soo fiirinay asxaab dhaanu maqro asxaab ada qorin annaga qorna adiga iyo annaga isku mid mini si bax walaal hada asxaab iyo xasan haye bal walaal macaan soo dhaw raalin noqo waa ku digay dadka guriga mas'uulka ka ahaa way joogaan dhibaatada dareemaysa maxay tahay qof muslim ama ku imaa kara miyaa gurigaaga martimo soo gal karta miyaa nixima aniga adigu aan ismaqalno markayga aan hadlo markaaga hadal buuq iyo afmaroojin iyo gabar ay 50 jir ma tiid iyo hurufkaan iyo waxaan waa laga soo tagay meesha tuuladii aa ka timaaday Soomaaliya ma ahan Soomaaliya waxaas laga yaqaanay dhaqamadaas Soomaaliya waa tuulo ahba nixima aan hadlo walaal macaan anigu qaababkaad sameynaysa uma bogin marka koobaad in aad oo shalay imaaday oo adigu marti aad tahay aan marti soo dhaweysan nin guriga soo galisid waa sheeko la yaab leh kow tan kale gabar wax soo baratay aqoon leh gumaysiga dhow kaada gabar wax soo baratay aqoon leh maanta dhowcil yaro bilig la aan ahayn deganaan iyo ilaahay qiimo iyo sharaf siiyay in xilligan albaabada niman u soo garaacaan waa sharaf darro halkaana Kenya la dhahaa haddii wax yar oo khalad lagu arko warkaaga magaalada kaaga horeeya wadankaad ku asturnayd aad ka dhalatay Soomaali aad u tagaysid ma ahayn halkaan wax Soomaali dhaw ma jiraan wax daris dhaw ma jiraan wax soo ama jiraan walaalay macaanay walaalnimaan ku keensaday guriga ku soo dhaweeyay qarashka inta tara leeg aan kaaga bixiyay inaad halkaas birmiis gunto cuntid mustaqbalkaaga qurux badan ku sugtid ku sugtid ku dhowratid ilaahay wax khayr qabaan ku siiyo ayaan kuugu yeer laakiin xilligan aftaag iyo gabar iyo 50 jir sheekooyinkood inaad ii gashid kaama sugayni nin dambe gafuur taagay mid garka u sii daysay meelahan waaba dadka dhibaateeyaba ninka garkiisa wajigiisa ama ka shakiyo inaad u yeelatay ama dib dambe albaabka u soo garaacana ma doonay gurigan mid duma shaqaya jooga oo ku jira asaga xataa la yaab iyo ceeb bay ku noqonaysaa walaashiis ama duwaashiis shala timid inuu nin caasha saarayso oo arko nin caasha waa saaraa nafaaleeya